muuqaal ahaan meeshan waa meel aad u qurux badan. dadkana waxay u yimaadaan siyaabo kala duwan. qaar baa u soo orod jimicsi taga, qaarna socod iyo hawo macaan ku qaadasho ayay u yimaadaan. balse aniga bilo dhowr ah ka hor meeshan waxay ii ahayd god aan uga gambado indhaha dadka. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. هوي سيدات هاي مفيعنت هاي؟ أنا هاي الحمد لله. يا واي ولا هوي واسنان لي هذا كاملة. اوكي ماما كاملة. سوري ماما نبرك هاي مسا تلسنا نسيت هاي حالتك كويس. هوي وفي عنها وإحنا رادنا إنك جمال هاي ما ركتي. ماما الحمد لله وفي عيني هاي والله ما أعرف ومشكور سيان أمالينا يا ما ويز مش ويزين. ورنيكي والله هاي بريد ما أركينا هوي وبين يوشك. وفي عيني عشان قياس هاي ماما. مرك إن شاء الله أنا أتوقع دون إن أتعد ورادنا سيد تقدر أنا كل سعادة سيدون إن شاء الله. هاي هوي معانا وغير الله كسي ودعي سنتا هوي. heerka aan gaarsiisnaan darteed qofkay u dhiigahayo qofka kaleba ma jirin qof aan ka helayay ixtiraam ama soo dhaweysasho. se ahaatee aniga inta uu qiyaas maskaxdayda ku jiro maba aaminsanayn inay jiraan wax
iga maqan, waana sababta uu qof walba oo ii soo dhowaado uusan igu ag dareemi jirin nafis. Dadka kale caawintayda iyo waxsheegayga marka ay ka caajiseen oo bilihii ugu dambeeyey xitaa aan noqdayba qof aan hoyba lahayn, waxaa jiray saaxiib mar walba jeclaa inuu i caawiyo. saaxiibkay soo dhawaaw. meesha jiifin jirtana waa laga soo celiyey soo maaha. maya aan saaciyo war waxaasna nagula hadlin. dharkaagaan wasaqda ah iyo madaxaaga iyo wasaqda kaa muuqato ma qof meesha kasaan ku tahay. markaa inaa igu fahantin waa igu saxaaw. welina sidaanaad usii hadleen. waxaan kugu imid hooyadaa aad raadinaysay. anigana beritooda safar ayaan ahay insha allah. marka taleefankaan kuu keenay koley maamad ayadaa kula soo hadli doonta insha allah. bilaayada siisan jirtayna siisanay kala hadla maamad. sidoo sidaan aan la hadlin maamada wadnaan ha goyni sidaan isku bedelo adiga nadiif aa la hadla maamada. saahay waa xibraa maxaa kaa galaaday? balse aniga aan ahaa qof aan kalaba ogeyn midka u xun iyo midka u fiican, oo waqtigii iigu darnaa aanba kala garanayn halka uu gabalka igu dhaco iyo halka uu waaga igu baryo. Hello. Hello, ma Jamaal ba? Hooy. Wariyaa hooyadaada ma aqaani maxaa kugu dhacay oo xiriirkii waalidnimada iyo xiriirkii aa u jartay oo kugu dhacay? Hooy ma garanaa. war ninkii xirsi haya igu dhagan oo muddo 3 bilood bay igu dhagan oo xabsiyaan qarka u saarnahay maxaa kugu dhacay soo hadal. Xirsigee hooy. wariyaa ma xirsigii markaan guriga ku iibiyay lacagtii kugu filaaweysay dhoofka ku soo aaday aan kaaga qaada lacagta ayaa ileedahay yaa hooy. ها حرسي غير حرسي wariyaa iska daa wax aan deyntii waxaan kaal ahay masruuf muddo 3 bilood hadal maxaa dhacay soo hadal oo ii soo dir masruuf ma haysan waxaan masruufan mise waxaad doonaysaa weligii anoo ku habaarin sidana iyo nin weyn oo soo dirsan oo boos loo gada noqo oo na soo ogow.
Jamal waaye. haye maantana xageed ka soo dhacda Wallahi arina igu soo kortay adiga kuma ahaan ma haysto waa ogtahay. Marka inaan xaafadda kugu imaado rabbi ma karaa. allaha allama iradayda ma soo istaagin awalba alfuleysta allama yaqaanay haddii kalena booliska rabood garaynaayo cid kale ma haystay waa gabadheeda aabaheeda waxaa ilaa intan igu gubtaya Horta hal mar bes aan ku imaado aan sidaa ma ahaan dooni. bal weligaasaa doontaa hawjeedkana ku dhacdhacee yaa maa gelinaya telefoon nambar aanan aqoon qabashadiisa dartaa baan u daynayaa luul waa xaaskayga gabadhayda hooyadeed wax badan bay ii samirtay laakiin dulqaadkii ayaa ka dhammaaday oo xitaa waxa ay joojisay caawintii dhaqaale ee hooyo iyo la xiriirkeedii inta aan xaaladdan ku sugnaa. Marka aan maskaxdayda buuq ka dareemo waxaan isdejin ahaan u isticmaali jiray inaan shito awji weed balse maalintaas dabka iyo warqadda isma aan qabadsiin. waxaan waayay ixtiraamka dadkii iigu dhowaa. waalidkay ma caawin karin halka ay hooyada iga sugaysay iyo waxaa aad u kala fogaa halka aan joogay. ma jirin cid aan garab weydiisto ama baxtaa warkayga rumaysanaysay. dhinac qoys, dhinac reer, dhinac adduun iyo dhinac aakhiro ma jirin meel aan ku fiicnaa markaas. waxaan subaxaas go'aansaday in aan sii ahaan noole dilan. waxaan gacantayda ku tuuray caleemahan qofka isiiyo aan ugu jeclaa dadka. waxaan isku xiray inaan dib u soo nooleeyo jirkayga. waxaan dhacay jirkayga laakiin ma uuna dhicin go'aankayga.
waan wareeray, balse waxaan ka sii wareer badnaa maalinkii ugu horreysay ee aan cabay qiica caleenta aan quudan jiray. Soco, carar, harajo dhigin, dib ha ugu laaban godkii. Noqo mid ay dadkiisa ku faanaan, noqo mid waalidkiisa wax taro. Ereyadaas iyo kuwo kale oo ka badan ayaa waxay ahaayeen kuwo xiiq iyo daal walba ila qaybsanayo. wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wasanoo bariyo malmihii wacnaa way soo sodaan, malmihii wacnaa way soo sodaan, malmihii wacnaa way soo sodaan, malmihii wacnaa way soo sodaan. wasanoo bariyo malmihii wacnaa way soo sodaan, malmihii wacnaa way soo sodaan, malmihii wacnaa way soo sodaan, malmihii wacnaa way soo sodaan. ilaa aan ka soo noqday qof dib ugu istaagay maqaamkiisii dadnimo. Halo, حبيبي waxaa shaqo soo ugu soo daahday. Aniga gabadhaada yar waan ku xiisay. Ayo, okay. Mana? Waqtiga Sasa. Hadda waxaan ahay qof gurigiisa ku soo laabtay. Waxaan ahay waalid, walaal iyo wiil la ixtiraamo, dadkiisana caawiyo. Murugada iyo dhibka waa qayb ka mid ah nolosha. Fadlan ha isku dayin in aad balwad u isticmaasho inaad ku baabi'iso dhibka iyo murugada nolosha. Keliya waxay noqon doontaa mid kugu sii siyaadiso ee ma noqon doonto mid kaa qaado. Mar walbana kaasho samir. Ha noqon noole dilan.
istisnaan darteed qofka igu dhiigayo qofka kaleba ma jirin qof aan ka helayay ixtiraam ama soo dhaweysasho. Muuqaal ahaan meeshan waa meel aad u qurux badan. Dadkana waxay marka inay u fahantiin ma u saxaaw welina sidaanaad usii hadleen waxaan kugu imid hooyadaa aad ku raadinaysay anigana berito la safar ayaan ahay insha Allah marka taleefankaan kuu keenay kolay maamad ayada kula soo hadlayso insha Allah bilaayada siisan jirtina siisanay kala hadal maamad sidaan ala hadlin maamada wadnaana ha goynin sidaan iska bedelo adiga nadiif ala hadal maamada ساهي لا حورا لا حاك عقل هذه balse aniga aan ahaa qof aan kalaba ogeyn midka u xun iyo midka u fiican oo waqtigii igu darnaa waanba kala garanayn halka uu gabalka igu dhaco iyo halka uu waaga igu baryo. aniga inta uu qoyaas maskaxdayda ku jiro maba aaminsanayn inay jiraan wax iga maqan waana sababta uu qof walba oo ii soo dhowaado uusan igu ag dareemi jirin nafis. dadka kale caawintayda iyo waxsheegayga marka ay ka xaajiseen oo bilihii ugu dambeeyay xitaa aan noqdayba qof aan hoyba lahayn waxaa jiray
saaxiib mar walba jeclaa inuu i caawiyo. saaxiibkay soo dhawaaw. meeshaad jiifin jirtana waa laga soo celiyey soo maaha. maya aan saacidayo. war waxaas nagula hadlin. dharkaagaan wasaqda ah iyo madaxaaga iyo wasaqda kaa muuqato ma qof meeshan kasaan ku tahay. Waxay u yimaadaan siyaabo kala duwan. Qaar baa u soo orod jimicsi taga, qaarna socod iyo hawo macaan ku qaadasho ayay u yimaadaan. Balse aniga bilo dhowr ah ka hor meeshan waxay ii ahayd god aan uga gambado indhaha dadka. Wih, Somali aha. Halo, assalamualaikum. وعليكم السلام هوي سيدات تايم في عن تهاي Fiicanahay alxamdulilah. Yaa waay walaal. هوي وإسنان لي راد كاملة Okay, Mama Camila. Sorry, Mama, nambarkaaga imisa teleysnanaysa tahay xaaladda ka هوي waran. وفي عنها وحنا رادنا إنك جمال هاي أما عرفتي Mama, alxamdulilah wuu fiican yahay wallahi amaan ma arag uu mashquulsan yahan umaleynaya ma weysay. ورنيكي والله هاي بريدا ما أركينا هوي Okay. ومالي وشاك oo fiican yahay saan qiyaasahay maama. Marka insha Allah anaa usoo hegi doono inaad aad u raadinaysid degdeg ahna aan kula soo hadalsiin doono insha Allah. هاي هوي معانا وخير الله كسي ودعي سنتا هوي